markii ugu horeysay indhaha isa saaray waxaa lagu sigtay in rasaasta la isku furo diyaarad daroon ah nooca duuliyaha aan wadin ee waa nooc loo yaqaana shaahidka oo Iran ay sameyso oo halista ah oo one way-ga ah waa diraysaa baashaas dib uma soo laaban karto hal dhinaca u dirtid kaliya aadaysa dhageysta shakada wax xasaas markabka weynaa Mareykanka uu leeyahay suurkiisa u jeedaan US Abraham Lincoln ayaa maanta diyaarad daroon ah oo Iran ay soo dirtay hawada ku soo jirtay waana suicide waa bima mito alla alaabtaan markii la soo tuuro diyaaradan daroonka ah dib uma laabato meesha loo diray ku dhacdaa marka waxay u soo socotay markabkii waa galabtay dhinac saaqsadaan hadda waa breaking news maanta Twitterka dhan waa arrinkaas ku shaqeynaya bas diyaarad Mareykanka markuu ogaaday oo reedaalkii uu qabtay waxbaa soo socdaa la yiri diyaarad nooca F-35 ka ah oo markabka dushiisa saarneed ayaa la diray isla markii diyaaradda daroonka ee Iran ee soo dirtay hawada looga hortagay halkaas ayaa lagu burburiyay diyaarad Iran ee leedahay ku iri oo shaahid ah ayaa meel Iran u dhow lagu burburiyay marka Mareykanka meesha yaalo ayaa diyaarad soo diray taas ma igahaysa waa halis escalation way waxa kale oo dhacay maanta marka Mareykanka uu leeyahay laakiin marka military ahaan oo shacab ah laakiin calanka Mareykanka uu ka babanayay oo dad Mareykan ay leeyihiin ayaa wuxuu marayay badda u dhow Iran maanta ciidamada Iran oo doomo saaran oo hubeysan sida alaabta burcadbadeed oo kale geesaha laga soo maray markabka Mareykanka ahaa waxaa la yiri dadka saarnaa Mareykanka isdhiiba markabkan waa la qafaashay iyadoo sheekada meesha marayso oo isdhiiba iyo sheekada ay ku jirto markabka Mareykanka marka wushaleray xulli ku socday kuwii Iran bursanaayo iyadoo sidii Tom and Jerry cabal badal isku bursanaayo oo Iiranta ay leedahay Georgia waraada soo dega ayaa waxa soo dhaxgalay markab Mareykanka uu leeyahay markab dagaal ah kuwii Iran iyo kuwii Mareykanka qoryaal isku qabtay laakiin xabad lama ridin kuwii Iran waa iska laabteen dib u laabteen arrintaas ayadana waa escalation kale xilliga daroonta ee la soo ridayo iyo xilliga doonta waxa u dhaxaysa lagu leeyahayba waxaan dhameen 2 saac qisadaas marka labadaas qiso oo yaab kale waxa soo sadeexeeyo Iran oo maanta dib u bootay sida ogtihiin shalay ilaa xalay ilaa daraad waxa la hadalhayay kulan Mareykanka iyo Iran ee isku arkayaan Iran iyo Mareykankana waxay ku heshiiyeen in Turkiga kulankan uu ka dhaco oo meesha qolka iskugu imaanayo ee noqoto Turkiga wuu aqbalay Iran way aqbalay laakiin maanta Iran waa booday waxay tiri maya ma rabo Turkiga uma socdo Mareykan oo meel kale isku aragno dal Arab dhan ma rabnay dhehen iyo Turki markii la raftay oo Iran lagu celceliyo liir warsay rabtaa Iran ugu dambeyn maanta waxay ogolaatay in Oman dhageysta Oman in la isugu imaado laakiin qolka kaliya ay soo gali karaan Mareykan iyo Iran oo qof Arab ah iyo qof Turki ah qolkaas uusan soo galin Iran waxay leedahay aniga iyo Mareykan bas arabna inaan soo fadhiisano shuruudaas waxa ku sii dheer oo Iran ay leedahay hubka nuclear-ka bas laga wada hadli karaa gantaalada kale ee aasameysto iyo diyaaradaha droonka iyo ciidamadan kale maleeshiyaadka oo Iraq iyo ku tababartay iyo Lebanon iyo kuwan Iran ee Israa'iil ku hareereysnaa iyo miiska ma soo saari karno ay leeyihiin Iran ayaa saas leh Mareykan wuxuu leeyahay war wada hadleenaaye wixii oo dhan miisku inay saarnaadaan waa in gantaalada gantaalada xooligooda u dheereeyo Iran ay aasameyso iyo hubka nuclear-ka iyo maleeshiyaadkan adiga aad tababarto meelaha ku dhooman oo shiicada ah kulli waa inaan ka wada hadalno Mareykan sidaas ku adkaystay Iran waxay ku adkaysanaysaa hal qodob kaliya ayaan ka wada hadlaynaa marka arrinka daroonka maanta laga soo riday Iran iyo arrinkii doonta ciidamada Mareykanka iyo ciidamada Iran oo doon saarno is arkay maanta badda isku galabta qorax dhici is arkay iyo sidoo kale arrinkan Iran marba ay boodayso leedahay iskuma arki karno Turki qodobada ka wadana waxay u muuqataa walaalkii wada si kale u fiiri arrinkan wax heshiis la wada hadal loo dadkan inuu dhexmaraan ilama ah jimcada loo balansan yahay kulanka si la sheegayo caawaba duusan dagaal qarxin kulli marka waa arki doonaa laakiin arrinkaas soo kordhay waa xaalad aad u cakarinta caawa waa ka warsugeynaa bal Iran waxa ay ka dhihi doonto diyaaradeedii la soo riday ee galabta iyo Mareykanka asagana oo goor hore war soo saaray oo yiri duulaanna lagu soo qaaday waxaas laga yaabaa waxa indhaha ku heesaan Trump wuxuu dhihi doonaa Trump waxbuu soo qori doonaa wuxuu dhihi doonaa Iran soo gardareystay hal lagu shumuumo wax sax ma loo soo dhihi doonaa adiga